waa socdaal ay bahda SRTV ugu kurgalayaan hab nololeedka miyiga dhalinyaro magaalada ku caqliyeystay sidanada ayaana weheliya kuwaasi oo u arka kaftan iyo malaawaal goob inta badan lagu sheego xayawaanaadka dadcunka ah hawdkani waa aaga dulqabow ee gobolka Quraxay in badan sheeka ayaan ku maqlay balse hadda waxaad moodaa in ay tahay waqtiga ugu fiican ee aan sahmin karno dhulku waa dugaad oo dhowr roob oo lagu diirsada ayaa ka da'ay aagani jeeqjeeqda iyo sawaxanka xayawaanaadka duurkanina waa mid dhagahayaga si talanteel ah ugu dhacaya ku dhawaad 5 saac oo barqanimo ayaan magaalada Qabridahar ka soo baxnay haddana saacadu waxa ay cagacagaynaysaa abaara 11 galabnimo xilligan waa xilli aanu u baranay in aanu casariyeyno oo qaxwo iyo wixii la halmala ayaanu suuqa u raadsan jirnay laakiin hadda waqtigi ma ahna oo waxaanu joognaa kayn aanan aqoon hore u lahayn waxaanu kala kulmi doonana aanan saadaalin karin daqiiqada kadib dhulka ayaanu ku foofnay maadaama dhulka Soomaalidu uu yahay mid hodan ah oo khayraadihin oo caafimaadka u fiican uu eeba ku maneystay bismillaahir rahmaanir rahiim anu xaalada Maxamuud Yuusuf waxa weeye meeshan eega hadda aan joognana waa qabri dari marka qabri dari oo nimcaysan oo roobka si fiican u helo deegaan leh oo lagu barwaaqoobay oo dawladeenadii maxaan ku dhahay nala socdo oo maxaan ku dhahay hay'adii gaarigii nala socdo hadda oo qabri dari dhextaana qaari hadda kaamiradu hadda ay ku socoto marka waxa weeye nimcada waxa ka qabto dhirtii Ilaahay farabaan tahay macallinka ka baxay likii baa iga hadda yaalo oo kan hadda gacanta lagu haya walaalka waxaan waa bunkadii waxaan kabtan dhexda waxa ka jira inay baa ka jira waxa weeye labada waa la isticmaalaa waa la cunaa waa duwo marka calool fadhiga xitaa maartay markii yar dabariya waxa yaalato ka dawo wayaan ninkii yaqaana garane marka isticmaalkiisa marka waxa isku aragtaa eega baashan aad cunto wax weyn baa iska garanaysaa marka sida weeye insha Allah waa dhirta laga qaraabsado dhuunyaalihii iyo dhafaruug bislaatiyo midhaha la dhuunyado iyo daaqsin xabageed oo daweysa dhabarkiyo tamayuluq dhadhaar leeg nin dhadhamiyay baa oge waa dheef qaaliya waxay ka mid ahayd erayo markaasi lagu xusay dhaantooyinka luuqada deegaanka Soomaalida dhirta laga qaraabsado dhuunyaalihii iyo dhafaruug bislaatiyo midhaha la dhuunyado iyo daaqsin xabageed oo daweysa dhabarkiyo tamayuluq dhadhaar leeg dhadhamiyay baa oge waa dheef ajaa'iba inta badan waxa la arkaa in laga cararo goobaha lagu sheego libaaxa oo ah xayawaan xeelad badan oo ilbiriqsiyo wax ku dila laakiin anagu waxaad moodaa in aanu u aragno kaftan iyo ciyaar oo waxaanu raadsanaynaba raadkiisa iyo goobaha nologu sheego meesha waa lagu yaqaanaaba arladan libaaxa iyo waxaas miya waa lagu yaqaanaa xaradiisi wali xaradii libaaxa وحرد اللي بيحد كنت تتعامل مع الله هاي هذا هو كعكاوة هاي واللي ما عرفت إنه اللي بيح ما سرقتن إنه ما عرفت هاي وحنا مو دواد وسكع عرر يا ميوح اللي بيح سكيد ضد بالك اللي بيح هو من نبغى ضدقاتك هاي الناس هو عدم عرر هاي ودين بقص عاد دادوك هاي لهنا ديعود قام بضم السماء بال هاي دلوقتي هو حالي سجاري كرمها بدي صح أوكي وإيه كمان عرر أحد اللي بيح بقى إيه قلدي وعرر اللي بيح حد كتير marka ee gaadaan ee xarkan iska qaadna ma arkayna libax wala laga yaabo ana arkay ilaahay naga nabad geliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala amiin ma soo noqonaysaa ha xaga waxaan u soconaa galadiid kulli baa aad buu ugu badan yahay laagahan laagta maraba waa lagu arki cabsi badan baa laga qabaa
dulqabow meesha waxaa loogu bixiyey waa meel baruun ah waa meel haddii alla kuu sugal yahay waraabaha iyo geela uu ka daaqsadoo ku hadho waa dhulka meesha ugu cimilad fiican ee ugu daaqeen fiican waa meel hodana anuu nin reer baadiye ah oo libaaxa codkiisa yaqaana iyo dhurwaagu codkiisa yaqaanaana dhurwaagu waxaa jirta afgarashaa jirta xilli uu baadida markaa daydayayso oo baadi inuu arkay oo xoolaha inuu cuno uu rabo cod u hadlaa jirta xilli libaaxa markuu arko codkiisa aad garanoo libaaxa inuu haysta aad garani baa jirta marka waxaan dareemay inuu caawi libaax arkay laba dhurwaaga markii ciday inay libaax caawa haystaan yaan ogaaday libaaxdii noocaas ahayd ee saa u fara badnayd sanadka qabalaha xagar warrab maxamed cabdidaahir geel hoostiisa galayay dileen libaaxdii aad u fara badnayd markii ay dileen yay wiilal sun u mariyeen halo libaax madow libaaxyada waxaa noogu daraa libaax madow oo birtaa kaameerada midabkeeda u eg oo markuu kugu soo socdo aadan arkin oo madow oo dhuxul la yidhaahdaa yaa ka mid ah 3 libaaxoo wada socon jid iyo 2 libaaxoo wada socon jid laagta la yidhaahdo bawa buurta bawa muraasa galeen baa la yidhaahdaa waa xarunta libaax muraasa galeen libaax wuu ku dhalaa shawliga dhuur wuu ku dhalaa shawliga dhuur waa gelduulaan oo xabashadu u bixisay dulhood waagii onalaf iyo dawladdu axmaaradu ay saysan jirtay dulhood waxaa loogu bixiyey onalaftu waa dulhood oo markay gasho axmaaro gasho ku faa'iidaysta dulhood baa loo bixiyey meeshaa shawli baa ka baxa waa shawli dheer oo ilaahay qoray shawliga noocaasa heermar maxaa jirtay libaaxa aanu u mari weynayn oo wixii ruuxii yidhaahda kacab yidhaahda uu korka kaga dhig xoolihii yidhaahda kacab uu celin libaaxdii noocaas ahayd markuu maxamed cabdidaahir uu sineeyey 3 libaax kii dhuxul ahaa iyo 2 kale wiilal geejiraa inay un ayagoo iska socdo soo derdereen 2 waaweyneyd oo meel taalla dhuxul la fayowya sida haadku u lala ama diyaaraddu ay dusha u socotay 2 wiilin baa waxay arkeen waxun libaaxiyoo ku soo booday libaaxdii dhimatay buu waardiyeynayaa 2 wiil dhaxdoodii buu ku dhacay wuu kala caydsaday midba meel buu ka tuur libaaxdii baktigoodii jidaalkii dhanna wuu waardiyen jiray riquriyo wataa waagii dambe u soo kaco adigu waa la waayay 3 iyo 2 libaaxoo wada socota oo qurax shir meeshii la yidhaahdo ayaguna ka soo baxa 3dii wada socon jirtay 2 dhimatay dhuxul la eega ayaamahan maana arag 2 libaaxoo wada socota midu markuu hasha qabsato ee ruuxa geela la jooga uu ku soo ordo yuu hashii meel ka dambaysay geli ruuxii hasha ku socday isla waraabaha ka rush yuu ku hortagi mido libaaxda noocaasaa jirta daqiiqadooyin ka hor ayaa goobtan inda lagu sheegay in la arkay isaga oo ku eryanayo doofaaro annaguna waxaanu baadi goobaynaa in mar-uun ay kaamirada SRTV qabato libaaxa dullaafyoonaya kaymaha dulqabow cadceeddii liiqa ayay gashay oo dhulku waa madow cabsidu waa ay sii xoogaysatay oo dhalinta magaalku inta badan kuma qanacsana jiifka hawdkani kulmistay halaqyada iyo xayawaanaadka dadcunka ah maadaama kulley waa hayjad waa meel ay xoolo ku dhaqan yihiin iyo ugaadh kulley maadaama ay joogaan masas waaweyn oo qabri dari hadda laga helo mas weyn oo dadka laaya ama xoolaha dila laga helo libaax uu aad ugu badan yahay oo dadka adeeg ruuxa artay weydiisaba xalay baan arkay eegu raadkiisa halkan uu maray laleeyahay maxaad dareemaysaa badan caawa halkan seexadkaanu wallaahi aad uga faraxsani laakiin sababtoo ah ilaa mar horena waad ka dardaarmayso war halkan naga daayay sababtoo ah intaan soo socdo dhan baan waxaan ku tali jiray inaan tagno meel magaalo leh ama guri ku badbaadin karaya sababtoo libaax halkan jooga waa libaax dadka qaadi jiray waa libaax bartay hilibka inuu cuno waa libaax saacad walba geel u galay
ruux bannaan jiifo oo gogol haysan oo geel dhex jiifa ayada badbaadadiisu way daran tahay marka anigu waxaan dhihi lahaa markaynu waqti ku caweysneen caanaha cabneen yar caweysino inaan meel guri leh oon saaxan karayno aan tagno maadaama na barande geel dhex joogiisa ama libaax uu ku soo dhacay ruuxaan arag ama hadduu ciyaabade uma dulqaadan karana seexashada ma jirto marka anigu waxaan leeyahay waqti markaan qaadano aan caweysino caanaha dhanno ee geelu soo xaroodo kadib meel aan ku badbaadi karno nafteena ku ilaalin karno inaan tagno wallaahi kolley arrinka idinku waa iska wadateen qorshaha horta anigu idinkuma raacsanayn ina caawa aan ma garanaysaa aan miyigan sidoo kale ay dadku aad u sheegayaan libaaxa iyo sidoo kale waxaan maqlayay libaax mooyaane wax kale oo mas baa iyadan lagu sheegayay maskuna ma garanaysaa isku halleyn ma leh waxaa weeye libaaxu ma garanaysaa qaar baa iska lahaa xalay baan aragnay xalay baa noogu dambeysay qaar baa iska leh adigoo iska cawisamay soo dul istaagi kolley inaa sheekada un bay ku fiicantay in libaaxa ma garanaysaa libaax baan soo arkay waxaas iyo haa laakiin kuma fiicna in ma garanaysaa hadda xilliga waqti xaarka uu naga dhex bilaabo aamina ma marka anuu arrinkaa idinkuma raacsanay inaan ma garanaysaa caawa aan xaggan joognaa inaan intaan iska yar caweysino ma garanaysaa duu ilaahay ku subagelyahay aynu ka dheelmanaa ila qurux badan haddii ma garanaysaa waxyaaba badan way ka fursan weydo waa la seexday saad isku ilaalintalo waxaa weeye dee arrinka horta kulle aan idinkuma raacsaniba in ma garanaysaa la seexdo laakiin hadday ka fursan weydo dee nin seexan miya anugu waan soo jeedahaya nin seexan miya anugu waan iska soo jeedaya waxaa weeye nin difaac ku jiraan noqonaya oo is ilaalinaya markii lagu leeyahay eega libaax baa xalay aragnay oo xalay buu ma garanaysaa goobtan hadda aan joogno iyuu marayey markii lagu leeyahay ama xalay buu neef usoo dhacay odoo xoolihii deesaana kale u dhex jooga oo ilaashanayayba xoolihii dhankaa kala baxay kamana celin karti marka inaad habaarto mooyaane kama celin karti marka waxaa weeye dee kolley cabdisaaqow adi laftirkaagu saa aamayna noo fiicnayn in ma garanaysaa dad qalabkooda sitana ma niine sidaan ma garanaysaa aan ka carrawno aan ka gurno madibaas kugu laabanaad leedahay haa wadatashi dambe aan samayna kii hore anugu ilaa qurux badna idinkulamana jirin marka libaax waxaaba kasii daran maskan libaaxa mar hore meel koraa baad ka soo arki kartaa ama shanqadhiisaaad maqli kartaa baalkan ama waxaan laabta ku socdo oo dhanba dee ayaga laiskuma hadlayn karo shanqadh ma leh oo hadduu ilaahay ku suugelyahay ayagoo ku dhex joogo ambaad iska arkaysaa midda kale waxaan maqlay baalkan hadda aan magaciisa sheegaynay markaad magaciisa sheegaysa kaama oo dheerana waan maqlay arrinka ayada aad u sheegna ma fiicna marka hore aad sheegaysa maad ka laabatay dee kolley sheegnaba hadda ma garanaysaa dad badan baan ka maqlay haddii ma garanaysaa magaciisa la sheego goobtaasi kama dheera cabdisaaqow haddii aad tiraahdo caawa halkan ma joogna ama mataqaanaa ma seexana ani aad bay u adagta cabdisaaqow sababtoo ah inaan halkan seexano mataqaanaa caafimaad ahaan iyo mataqaanaa mooraal ahaan wax si walba u fiican tahay laakiin sidaad arkaysa maanta waa arkaysa in laynoo sheegay in masas iyo mataqaanaa libaaxba ay joogaan marka cabdisaaqow ani aad bay igu adagtaa inaan seexana caawa fulaynimanayga maaha oo baad ogtahay ballamo badan baan iska leh nin weyn baan ahay fulaynimanayga ballamo badan baan lahaa cawda iyo jawiga meesha bal ka waran jawigu aad buu macaan yahay sidaad arkaysa maanta mataqaanaa casariyihii lakaynu ku casariyeynay marka jawi aad macaan buu ahaa tii magaalada mataqaanaa lagaga raysan karo marka laakiin arrintan libaax iyo tan masqal daawadayaasha maxaad leedahay daawadayaasha waxaan leeyahay caawa jawigu aad buu noogu macaan yahay laakiin arrinta mataqaanaa libaax iyo maska iyo welwel badan naga haya laakiin halkaa ka dalxiisan leedahay yaa halkaa ka dalxiisan leedahay aad badan maasantahay libaax kolley nin dulqow joogay libaax ama in aad si kala fogeyn aad iyo marka in bal horta aan is aragno anigii libaaxu caawa aad u soo dhaweyn lahaa maadaama ay tahay habeen koowaad eega ragga qaarkii ay ugu cusub tahay dulqowha in intaan caawa seexano aan la derisno balgeli jiriyowgaa sawdka jooga aan la seexano oon la derisno bal libaaxi ayagu qaabkay maarta ay u macaamilaan xitaa aan la derisno oon kala sheekaysano aad baan soo dhaweynaya waana ku qanacsanayaa hadda ku horraa libaax aan haddee nin eeg hadday xitaa isarkaan ay isku cusub yihiin miyi ama waxaan soo maray miyi waan soo maray anoo yar baan soo maray waxaa jirtay waqti fog meelaha 7 sano meelahaas ayaan waxaabaan filayaa amna casar oo gaaban baa reer ka soo baxay xaggan eeg dusha meel naga soo horreysay wey
nagabtaa intayga aduun loo sii dhaadhicina aan ka soo baxay meelkeena ka soo baxay marka halkaas iska war nimaanay 3 libaax oo socota marka ma xilliga hadii libaax ahaan ma aanu garanayn baal inta baan xasri baan haramacad anda in meer maadaama haramacad baan moodayay intii aanu ku jirnay waraysyada waxa guud ahaanba aanu weynay shanqadhii geela iyo guuxii geel jiraha taasi oo cabsi hor leh nagu sii dhalisay maadaama aqoon durugsan aanan u lahayn hawdkani cidlada ah baadigoob wakhti qaatay kadibna waxaa noo suura gashay in aanu helo xerooyin geel balse aan weli lagu soo xaraynin geela saacaddu waa ay gurmaysaa geel jirayaashuna waa xilligii ay soo xerogelin lahayeen geela ha yeeshee dhalinta magaalku waxa ay isu diyaarinayaan tartan dhex mara geel jiraha oo inta badan ah kuwa lagu tuhmo dhinaca dhaqanka بسم الله الرحمن الرحيم هدان ku horeeyo su'aasheeda waxa weeye boqolka neef ee geela maxaa loo yaqaanaa su'aasheeda taasay ku saabsan tahay boqolka neef ee geela maxaa loo yaqaanaa haddii aad su-aasha ay weydiiseen waan isku dayo boqolka neef ee geela waxa loo yaqaano waxaa weeye har iyo riti neef dhadig iyo neef boqolka geelaha waxa loo yaqaano waa xubinka waxaa weeye bismi illaahi raxmaan raxiim dhallinyaradan walaalada ah su-aash baan weydiiyey su-aashii way isku dayeen waxaa weeye si fiican bay iskugu dayeen laakiin mayna ka jawaabin su-aasha siday ahayd marka haddii aan dib macnaha anigu aan uga jawaabo su-aashaas waxay ahayd boqolka neef ee geel ah macnaha magaca loo yaqaano boqolka geela waxaa loo yaqaanaa kadin marka su-aashaan usoo dhigahayo waa su-aal geela ku saabsan su-aashaas oo ahaa awrka markuu qooqan yahay wuxuu geelu cuno in awrku cunin haddii aan ka jawaabo su-aasha ayna weydiiyeen ahayd awrku wuxuu geelu awrku markuu qooqan yahay ama awrku wuxuusan cunin ee geelu cuno haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo waxaasi waa lafta bismillaahi raxmaani raxiim su-aashii walaalahii aan weydiiyey siday ahayd ay uga jawaabeen waxaan la caweysamaynaa oo waqti la qaadanaynaa dhalinyarta walaaladannada xoolaha dhaqaysa mataqaanaa miyiga chance u heshay inay joogaan xoolaha ku dhaqdaan marka su-aashaan weydiinaya waxaa weeyaan loodu markay 100 gaadho waxa la dhaho magaceeda واحد سؤال عادي اشرب مع واحد سؤال اشرب مع واحد كل بقول قاعد واحد لو يقان تيرو بسم الله الرحمن الرحيم ما دام هو سؤاشان انا ويديي لا ظن انا دقنو نكون جلينahay laakiin suxuunta loo yaqaan ma naqaan dhaqanka baadiyaha xoolaha meesha dhaqadka looda iyo geelada xilka waxaan naqaan aan ma aqaan dhalinyarta walaalaha nahay ku soo barbaartay miyiga
su-aashii aan weydiiyey ay garan waayeen waa boqolka neef ee lo-daha waxa la dhaho magac ay leeyihiin waxaa la dhahaa boqolka neef ee lo-daha magaca loo yaqaano waxaa weeyaan fadhi baa la dhahaa waxaan su-aal weydiinayaa dhallinyarada magaalada ku soo barbartay ee magaalada waxaan weydiinayaa su-aashaas oo ah xilliga geelo inta bilood uu isku dhalo bismillahi raxmaan raxiim su-aasha adeerkiina weydiiyey haddaan isku dayo jawaabteeda inta uu geela ku dhalo waa 12 bilood walaalaha dhallinyarada su-aasha aan weydiiyey way garan waayeen geela wuxuu ku dhalaa 12 bilood iyo 15 habeen hagaag su-aasha aan u soo bandhigayo wiilashaan ilma adeerkan haye sidoo kale adeeradayba dhinaca miyiga ku soo koray waxaa weeyaan boqolka fardaha ah maxaa loo yaqaanaa boqolka fardaha farduhu markuu boqol gaadho maxaa loo yaqaanaa haddii ay su-aasha ay weydiiyeen dhallinyarta magaalada ka timid ee walaalahaya su-aashaasi su-aalaan garanaya ma aha su-aasha ay wiilashanu weydiiyeen walaaladana ee reer magaalka annagu fardamaanna hadda ka hor soo dhaqanin mana naqaano tiro fardaa wax loo yaqaano waa tahay waxaan weydiiyey walaaladay su-aal ah boqolka neef ee fardaha ah maxaa loo yaqaanaa runtii way isku dayeen oo way garanwsa waayeen maadaama ay sheegeen inaysan dhaqanin laakiin waxaa loo yaqaanaa marka ay farduhu boqol gaadhaan wagan baa loo yaqaanaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan su-aalayaa dhallinyaradan magaalada ka timid ee walaaladaya su-aal ah geelu 12 xubnood ee isku xiga uu leeyahay su-aasha oo ahaa geelu 12 xubnood ee isku xiga uu leeyahay haddaan iyo meesha uu ku leeyahay haddaan isku dayo kolley aniga waxaan u malaynayaa waa luqunta su-aashii aan weydiiyey walaaladay oo magaalada ka yimid ee ahayd 12 xubnood ee geelu leeyahay ee isku xigta way garan waayeen waxaa weeye haddaan u sheego waa hunguriga bismillahi raxmaan raxiim haddii aan weydiiyo dhallinyarta ku barbaartay mataqaanaa miyiga inaan su-aashaan rabo inaan weydiiyo waxaa weeyaan geelu imse nooc buu qaybsamaa su-aashaan iga jawaabtaa mar walaalahay su-aasha ay weydiiyeen haddii aan oga jawaabo geelu intuu ka kooban yahay nooca waxaa weeye geelu aydin iyo godib ka kooban yahay su-aashii aan weydiiyo walaalahay mataqaanaa ay ahayd geelu imse u qaybsamaa sida ahayd bay uga jawaabeen waxaan walaalahay weydiinayaa dhirta dhulka ku yaalla ee geedaha ah inta nooc ay ka kooban yihiin okay haddii aan isku dayo su-aashayna weydiiyeen dhallinyarta walaalahana ah ee ka soo jeeda dhinaca miyiga ama dhaqanka miyiga oo su-aashaasi ahayd dhirtu inta nooc ay u qaybsanto kolley aniga haddii aan isku dayo dhirtu waxay u qaybsantaa labo waa geed qodaxle iyo geed aan qodax lahayn kolley su-aasha ay na weydiiyeen dadkan dhallinyaradan aan tartamayna xagga ka soo jeeda miyiga jawaabta uu siiyey walaalkay aad baan ugu qanacsanahay geedaha waxay u qaybsamaan mid qodax leh iyo mid aan qodax lahayn mayna ka jawaabin waxa weeyaan saddex weeyaan geeduhu mid qodax leh mid caana leh mid caara leh hagaag daawadayaal barnaamijkii caweyska ahaa ee su-aale isweydiinta ee ka dhacay agagaarka xarageel oo markaasi ku taalla aagga dulqabow gaar ahaan qaalida qabri dari wuxuu ku soo ekaaday 5 su-aalood oo markaasi annagu aanu weydiinay 3 ka mid ah way garan waayeen si la mid ah iyagana 5 su-aalood oo ayna weydiiyeen 3 ka mid ah ayaanu markaasi garan weynay taasi oo markaasi barbar dhac ka dhigtay barnaamijkii caweysinka ahaa ee su-aale isweydiinta ah markaasi dhex maray dhalinyarada magaalada iyo sidoo kale maxaan ku dhahay kuwa miyiga runtii caweys aad u qurux badan buu ahaa waqti aad u qurux badan iyo faa'iidooyinba waanu kala faa'iidnay caawa waxaanu seexanaynaa hadda saqbadhbarkii baa dhow oo waqti dambe baanu maraynaa welina caweyskanaga ma dhammaanin maadaama dad xiisoonaya aanu nahay inaanu iska dhaantayno in aanu maxaan ku dhahay farxad aanu wadaagno maadaama in badan magaaladii iyo qayladeedii aanu xoogaa ka soo fogaanay inaanu maskaxda dejisanana aanu markaasi u nimid guud ahaanna aanu wax ka baranno arrimaha geela iyo guud ahaanba dhaqanka miyiga waxaa
nu ku jirnaa ilaa hadda ilaa berina aanu ku jiri doonno hadduu eebeedno runtii jawi aad u qurux badan oo markaasi dhinaca miyiga iyo neecawda udgoon ee markaasi hawdka dulqabow tartanku shan su'aalood ayuu ahaa balse barbardhac ayuu ku soo idlaaday laakiinse geeljiruhu mid sidaasi ku hadha ma ahani waxa ay dalbadeen tartanka dhaantada oo u ekaa mid boqolkiiba eber lagu garaacay reer magaalka dadka Soomaaliyeed dhaqan lagu qaybiyo gabdho fiican iyo tinkuray leeyihiin gabdho fiican iyo tinkuray leeyihiin dadka Soomaaliyeed dhaqan lagu qaybiyo gabdho fiican iyo tinkuray leeyihiin gabdho fiican iyo tinkuray leeyihiin dawa iyo libaanta calada afteer iyo dalag shabeel laba loogu deeq iyo dalag shabeel laba loogu deeq dawa iyo libaanta calada afteer iyo dalag shabeel laba loogu deeq iyo dalag shabeel laba loogu deeq وريا كع وريا تص محلية تفتن isha geeljiruhu waxa ay ku doogsato araggeeduna uu ku samaado waa hasha gaar ahaan xilliga aaranka ah ee arladu cusub midhan tahay kolkaas oo geela dhogor cusub u fuusho baar qurxoon oo neecawdu ku ciyaartana u soo baxo geelu waa mid dhaqadiisa iyo dhaqaalayntiisuba u baahan rag aan hoh iyo caku toona odhana wiilal aan waaban oo wadnahoodu galowda aqoon iyo waayeel aan talada la weydaarin intaba daawadayaal goobtaanu soconno waa jiirta boodaley guud ahaanna waxaanu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu markaasi ku soo qaadanaynay amaba aanu isku barbardhigaynay nolosha magaalada iyo miyiga barnaamijkan waxaan aad uga mahad celinaynaa runtii oo kaalin weyn ka qaatay gudoomiyaha degmada boodaley oo garabkayga taagan cabdulaahi maxamed xasan oo runtii ayna noo suura gasheen barnaamijkan quruxda badan in aanu markaasi la'aantiis aanu idiin soo gudbinno sidoo kale iyagana waxaa qayb ka ahaa oo dhinaca magaalada markaasi aanu ka wada soconnay dhallinyarada khadar xuseen iyo kamaaldiin oo iyagana runtii iyagana barnaamijka qayb libaaxle ka qaatay gudoomiyaha gobolka qoraxe fuaad yuusuf sidoo kale waanu u mahad celinaynaa
guud ahaan tayo barnaamijkan oo aan markaasi idiin soo diyaariyey isla markaasina aan idinla socodsiinaya anigu ah cabdirasaaq ibraahim class cabdirasaaq daaja iyo dhinaca kaamirada qurxoon oo markaasi isagana uu ka qayb qaadanayay cabdiraxmaan nashaad guud ahaan tayo isku duuban iyo guud ahaan bahda SRTV ba waxaanu idinku dhaafaynaa barnaamij noocan oo kala inta aynu dib hawada ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh